السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام أصحابتي شرفت لميل بو الدنيا الضافية كجوكتان وولاشين بارلين iyo فيديو cusub iyo aragti kale oo cusub maanta waxaan sameynayay casriyo oo aan u sameynayay cida oo kaneel bular waxaan jeclaystay inaan asxaabta la share gareeyo ay iga faa'iidaan insha Allah taala soo dhawaada idin leeyahay meel walbo aad dunida daafeeda ka joogtaan anigana isoo dhaweeya hadda waxaan bilaabayaa qasitaankii meeshaas waxaan ku shubanayaa burkaas waxa waaye 900 gram qaadadaas 9keed iyo qaadadaas hadda ay intusayn burka ku soo cabiray labadeed oo sokor ah qaadada oo shaahiga oo vanilla sokor ah qaadada shaahiga oo heel shiidan ah xabad qamiirisa ama fixiso ama leebita sida u taqaanaan intaas ayaan isku xashayaa insha Allah markaas waxaan ku darayaa qaadada hadda ay intusay afarteed oo caano qandac ah intaas ayaa isku xashan kartaa adiga arki doono mana ka adkaanaya burka mana ka jilcaaya insha Allah taala hadii aad qaabkan raacdid waadna ka heli doontaan hadda waxaa la gaaray waqtigii aan ku dari lahay subaga insha Allah taala waa kaasaa 150 gram oo subagaas aan ku daray hadda doonto subaga waa soo qandacsan kartaa hadda doontana waa iska dhaafi kartaa wax dhibo ma lahan hadda mar labaad ayaa haddana ku shidaaya hadda waa kaasaa khalaas wuu dhamaada marka waa idin tusaaya siduu u ekaaday waa sidii la rabay insha Allah taala markaasaha waa sidii la rabay mana jilcano mana adko waa sidii la rabay qiyaasta baa raacaysaan insha Allah taala hadda 15 daqiiqo ayaan halkaas dhigayaa waxaan isku darsaday waxa waaye 200 oo gram oo subag ah iyo 200 oo gram oo sokor ah qaado vanilla sokor ah laba qaado oo qaadada cuntada oo qorfo shiidan ah waakaas waa isku qasoo isdhexgeliyay burkiina waxaa ka soo wareegatay 15 daqiiqo hadda waxaan rabaa inaan fidiyo burkii insha Allah taala idinka arki doona sidaan u sameeynayo ka faa'iideysi wacan walaalayaasha qaaliga ah labo aan u dhigayaa burkaas waxaan rabaa inaan laba saxan ka sameeyo laba saxan ayuu noqonayaa inta aan isku qasay hadda isku qasto laba saxan ayuu noqonayaa hadda waa u jeedaan waan fidiyay subagii iyo sokortii waxaan isku qastay ayaan korka ka mariyay waan jarjarayaa sida u jeedaan insha Allah taala ka faa'iideysi wacan soo dhawaada idin leeyahay walaalahayga sharafta leh ka saxankii ayaan saaray hadda waxaa marinaya waa ukun ayaan marinayaa waxaa kaloon korka ka saaraya idinka arki doono sokor yar oo burbuuran oo loogu talagalay in korka looga shubo hadda doontana waa iska dhaafi kartaa kaas sokortaas ayaan korka uga shubayaa burbuuran 30 daqiiqo ayaan dhigayaa markii hore 15 daqiiqo ayaan dhigay hadda 30 daqiiqo ayaan dhigayaa 30 daqiiqo kadib insha Allah waxaan rabaa inaan dubo idinka arki doono waad ka heli doontaan aad u jilcan yahay wuu fudud yahay wuu macaan yahay qasitaankiisa ma dhibadno waa iska casriye fudud aad ayaad uga heli doontaan insha Allah taala walaalahayga sharafta leh soo dhawaada fadlan channelka haddaad ku cusub tahay ha iga iloobi inaad subscribe inoo saarto adiga oo mahadsan haddii aad horay noola joogtay nala joog wala joogistaada waad ku mahadsan tahay waa ku jecelnahay hadduu muuqaalkan ku cajabiyay like tan ugu sharaf dhiirigelin ayay noo tahay intaanu muuqaalkan muuqaal la mid ku kulmi doonane waa walaashiin baarlin oo dhamaantiin idin leh nabadgelyo iyo nabadiino